Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena waxa aynu ku eegi doonaa noocyada dadka inaga oo dhanka aqoonta ka istaagi doona. Waxa aynu si kooban u sharaxaynaa 4 nooc oo uu caalamkii Ibn Jawzi u kala qaybiyay dadka. 4taas nooc waxa ay kala yihiin qof wax garanaya inuu wax garanayana og, kaasi waa aqoon-yahan ee wax ka qaata. Waa qof isaga naftiisa ka warqaba og waxa uu yaqaano iyo waxa aanu aqoonta u lahayn. Waa qof jecel inuu dadka wax u faa'iideeyo cilmi ahaan iyo aqli ahaanba, wixii lagu dhaamana cid kale u daba fadhiista. qof wax garanaya oo aan garanayn inuu wax garanayo, kaasi waa ilowsane ee xasuusiya. Inta badan marxaladani waxay dhacdaa marka uu qofka la kulmo ama uu waayo dadkii cilmiga ehelka u ahaa ama meelihii aqoontiisa ku kobci lahayd. Sidoo kale marka uu ku dhex jiro dadka aan heerkooda gaarsiinayn aqoonta uu leeyahay in ay fahmaan ama in ay ka qaataan cilmiga uu leeyahay, waxa uu iskala mid noqdaa aamadaas. Cilmiga isaga uu hayo haddana iyaga waxba ma dhaamo, oo mar walba fikradahooda iyo aragtiyahooda ayaa ka hog badnaanaya. Waxa uuna la qabsanayaa aakhirka dabeecadaha meeshaas. qof aan waxba garanayn oo garanaya in aan waxba garanayn, kaasi waa doone ee wax bara. Inta badan marxaladan waxa ardaynimada oo uu qofka garanayo in uu yahay cilmi doone, waa marxaladda uu qofka jecel yahay in uu aqoontiisa ballaariyo. Xaaladan marka uu qofka ku jiro waa marka uu aqoonta iyo cilmiga aad u raadiyo, da' kasta ha jire waxa uu heegan uga jiraa cilmi. qof aan wax garanayn in aan waxba garanayna aan ogeyn, kaasi waa doqon ee ganafka ku dhufta. Kani waa jaahilka, waana qof hindha adag, kalsoonidiisuna xad-dhaaf ka tahay. Waxa uu ka heshoonayo ama heerinayo ma jiro. Qofka marxaladan ku sugan waxa lagu gartaa waa keligii hariif, keligii saxane iyo wixii la midka ah. wax walba wuu ka jawaabayaa, wax walba anaa aqaan buu oranayaa, wax walba anaa hagaajinaya. Heer uu isgaarsiiyo oo uu aamino in aan la'aantiisa waxba socon karin. qofka noocan ah waa la iska qabtaa, wax uu haleeyo mooye waxba ma hagaajiyo badanka. ugu dambeyntii, isgarwaaqshuhu waxa uu qayb ka yahay horumarka. ay sababtu tahay in qofku og yahay heerkiisa aqooneed iyo baahida uu qabo inta ay la eg tahay. adiga 4tan midkee baad tahay? midka aad tahay aqoonsanow.